بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول دمان warbaahinta kala duwan iyo bulshada Soomaaliland baa marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullah maanta oo ay tahay 14 bishii 11aad 2024 waxaan halkan ku tabinaynaa qorshe hawleed ka soo saarista natiijada doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka saad ogsoon tihiin codayntii ka socotay dalka oo dhan in dhammaan goobihii intii u dambeysay ay soo gaari doonaan degmooyinka dalka saacadaha soo socda degmooyinka markay yimaadaan waxaa ku xiga maamulka natiijooyinka heer degmo howlwadeenada degmo kasta marka ay ka go'aan gaaraan wixii cabasho ah ee ka yimid goobaha codbixinta waxay isku dubaridayaan oo ay tirinayaan dhammaan natiijooyinka ka soo baxay goobaha codbixinta howlwadeenada xafiiska degmadu marka ay dhammeeyaan tirinta iyo isku geynta natiijada goobaha codbixinta waxay soo saari doonaan natiijada doorashooyinka ee heer degmo waxayna u gudbin doonaan xafiiska komishanka doorashooyinka qaranka heer gobol markay u gudbiyaan heer gobol sida ku cad qodobka 136aad iyo qodobka 143aad ee heer number 91/2023 xafiiska doorashooyinka qaranka ee heer gobol markuu helo xaashida natiijada ee ka yimid goobaha codbixinta iyo natiijada guud ee degmooyinka gobolka ee xafiiska degmooyinku ay soo gudbiyeen waxa uu hubinayaa natiijo kasta waxa uu ka go'aan gaarayaa wixii cabasho ah ee taagan ee la soo gudbiyey iyada oo ay goobjoog yihiin wakiilada ururada iyo xisbiyada iyo tartamayaasha dhan intaa kadib waxa uu soo gudbinayaa natiijooyinka doorashooyinka ee heer degmo gobolka waxayna soo saarayaan natiijada codadka heer gobol halka markay marayso sida ku xusan qodobka 138aad 46aad ee heer number 91/2023 xarunta dhexe ee komishanka doorashooyinka qaranku waxay sameyn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka degmooyinka gobolada iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janjarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishanka doorashooyinka qaranka uu soo saaray xarunta dhexe marka ay hubiso dhammaan xaashida natiijooyinka ee ka yimid heer gobol heer goobeed heer degmo heer gobol go'aanka gaadhista muranada la xidhiidha natiijooyinka iyo tirinta codadka sida sanaaduuqda lagu muransan yahay wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijo ku meel gaar ah natiijadaas oo ka kooban doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada asxaabta qaranka komishanku marka uu ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ah ee doorashooyinka madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo xisbiyada qaranka waxa uu nuqul rasmi ah oo natiijada ah u gudbinaya maxkamadda sare marka uu komishanka doorashooyinku ku dhawaaqista ku meel gaarka u gudbiyo xisbiyada ama ururada dacwad ka qaba doorashooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ee komishanka doorashooyinka qaranku soo saaro waxa awood u leh oo loo gudbinayaa maxkamadda sare muddo 7 casho gudahooda oo ka bilaabay lagu dhawaaqo natiijada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha maxkamadda sare waxay ka go'aan gaari doontaa doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha muddo 10 casho gudahooda sida ku xusan qodobka 162aad faqradiisa labaad ee xeer number 91/2023 taasi waxay ahayd qaabka loo marayo dacwadaha doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha qaabka loo marayo doorashada xisbiyadu wuxuu dhigayaa sida ku xusan qodobka 105 xeer number 91/2023
kow in maxkamadda sare ay awood u leedahay ka garnaqa iyo ka go'aan gaarista cabashooyinka la xidhiidha natiijada doorashada tooska ee asxaabta qaranka. urur iyo xisbi kasta oo cabasho ka qaba natiijada doorashada ee xisbiyada qaranka waxa uu cabashadiisa u gudbinayaa maxkamadda sare muddo 10 casho ama 10 maalmood ah oo ka bilaabmaysa maalinta komishanka doorashooyinka ku dhawaaqo natiijada. maxkamaddu sare waxa ay dacwadaha doorashooyinka xisbiyada iyo ururada ka go'aan gaaraysa muddo 15 casho ah. waxaan ku darayaa intaas xalayna waanu ka hadalnay waxa baraha bulshada laysla wadaagay dhammaan odorosyo iyo natiijooyin hordhac ah oo sharci darra waxaanu leenahay farayna uga digaynaa dhammaan mas'uuliyiinta xisbiyada iyo ururada iyo bahweynta warbaahinta in aan lala wadaagin in aan la faafin in aan la baahin natiijo aan ahayn ta komishanka doorashooyinka qaranku uu soo saarayo. doorasho fiican baa inoo dhacday biidmillaah nabadgelyo ah muwaadiniintu way soo baxeen way codeeyeen shaqada iyada iyo waajibaadkeeda ayaanu ka gudanaynaa sida uu xeerarka imika aan akhriyay sheegayaan. waqtina waynu haysanaa fadlan ilaaliya sharciga iyo nidaamka. aad baad mahadsantihiin. xubnaha guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay halkan oo ah xarunta degmada ee komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka hadlay warar kala duwan oo ku saabsan dhinaca doorashooyinka. waxa ay sheegeen in laga feejignaado in baraha bulshada la soo dhigo warar iyo natiijo aan ka soo bixin komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana fariin hambalyo u direen shacabka Jamhuuriyadda Somaliland oo ay sheegeen in maalintii shalay toolaha ay si wanaagsan ay codkooda u dhiibteen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. maanta maalin khamiis ah bishuna ay tahay 14 waxaan joognaa xaruntii degmada oo lagu soo wada xareeyay sanaaduuqdii ka soo xarooday degmada. sidaa awgeed waxaanu halkan idinka jeedinaynaa warbixin yar oo kooban oo aanu dhammaan bulshada shacabka reer Somaliland meel kasto ay joogaan gudaha dibadba aanu ku siinayno warbixin kooban taasoo ah digniin aan uga digayno in la mariyo warbaahinta iyo goobaha baraha bulshada war aan komishanka doorashooyinka qaranka official uga soo bixin. taas waa ciwaanka marka koobaad waxa Ilaahay mahadiya si fiican oo sharaf leh oo gobonimo leh inay shacbi weynaha reer Somaliland ay shalay toole u guteen cod bixintii madaxtooyada iyo tii ay ku kala saarayeen xisbiyada qaranka taasoo si gobonimo leh oo xol iyo xalaal shalay toole inoogu soo dhamaatay. xarayna dhammaan waxa Ilaahay wax loogu mahadiyaa inay si nabadgelyo ah ku soo xaroodeen sanaaduuqdii. xubnaha guddiga anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa intaasi ku daray in ay ka soo horjeedaan cid kasta oo anshax darro ku abuuraysa doorashooyinka Jamhuuriyadda Somaliland. waxa kale oo ay bulshada u soo jeediyeen in ay ka warsugaan komishanka doorashooyinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaasna ay ka feejignaadaan wararka been abuurka. xubnaha arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa dadweynaha reer Somaliland iyo shacbiga oo dhan uga digaynaa sida aan xagga hore ku soo sheegnay natiijo hordhaca oo aan xilligeedii la gaadhin in la soo dhigo baraha bulshada taasoo completely xaaraan ah taasoo sababaysa in sababi karta wararka been abuurkii isku dhac iyo waxyaalaha aan loo baahnayn bulshada dhexdeeda. walaalayaal inagoo qarankeena u turayna dhammaantiin waxaanu idinka digaynaa qof kastaaba inuu halkiisa mas'uuliyadiisa qaato oo uu joojiyo wararka been abuurka ah ee aan la gaadhin in komishanka doorashooyinka qaranka ka soo bixin ee baraha bulshada la dhigayo. warka rasmiga cid laga qaadanaya waa komishanka doorashooyinka qaranka. sidoo kale waxaan u digaynaa dadkii la dhaariyay ee goobaha joogay ama xisbi ha ka socdaan ama komishanka doorashooyinka qaranka ha ka socdaan goobahoodii ay joogeen gudahoodii wixii lagu dhaariyay in ay warbixin media ay ka dhigaan oo ay baraha bulshada ku baahiyaan war aan sugnayn. waxaanu leenahay idinkana mas'uuliyad baa la idin saaray dad mas'uuliyiin baa ahaydeen goobaha xaadirka ahaydeen war aan sugnayn oo aan komishanka doorashooyinka qaranka ka soo bixin ina idinku faafisaan oo dadka khalkhal ku galisaan idinkana waan idinka digaynaa. dhammaan dadka saxaafadda la yaqaan
iyo kuwa aan la aqoonay baraha bulshada isticmaalaba waxaanu leenahay ilaahayna ka cabsada oo dadkiina u tura oo dhammaan ha laga fogaado wax kasta oo keenaya kicin iyo khalkhal iyo khilaafaad waxa inoo soconaya maalmaha inagu soo socda tirintaas hadda waa degmooyinkii waxa la gaaraya heer gobol oo goboladii bay u gudbaysaa marka ay gobolka ka soo gudubtana heer qaran bay iman doontaa waxa la tegayaa xarunta komishanka doorashooyinka qaranka halkaas oo natiijada ay dhamaanteed ku soo ururayso tiyo inoo diyaarinayaan oo gacanta inoogu hayaan dadkii hawsha u xil saarnaa ee hawsha qaatay madaxa ku qaatay ee u dhaartay iyaga aynu u daba fadhino oo aynu ka sugno ilaa inta la gaarayo natiijada doorashada alxamdulillah si fiican oo gobonimo leh oo sharaf leh ayay hawshaasi inoogu qabsoontay waxaa la idinka doonayaa in aynu dhammaystirkeeda iyo dhammaadkeedana aan sugno